الرحمن الرحيم waxaan rabaa magaca madasha xisbiyada qaran iyo magacaygaba inaan halkaan maanta tacsi tiiraanya la ugu soo gudbiyo qoyskii eheladii iyo qaraabadii gabadhii Almas Elman ee maanta runtii sida kadiska ay xabad ugu dhacday iyadoo joogta xalane kamboonka gudihiisa runtii waxaan qoyskeeda iyo ehelkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan uga tacsiyeenaynaa geerida gabadhaas ku timid waxaanan dalbanaynaa madasha xisbiyada qaran waxay dalbanaysaa meeshaas oo la og yahay meelaha ugu nabadda badan Soomaaliya inay tahay aysan sahlanayn in si fudud qof loogu toogto aan isleenahay markii koowaad weeye oo aan weerar toosa ama mid hoobiye ahayn qof meeshaas gudaheeda dhibaato uu gaarto ama uu ku dhinto naftiisii halkaas ay ku baxdo waxay madashu dalbanaysaa in baaritaan sax oo aan ahayn guddi baa loo saaray oo aan ahayn maaragtay kii gobolka Banaadir hadda u dambeeyo kale ayaantii dhaweyto gabar indhala ah baa isku qarxisay gudoomiyay ahayn in arintaas baaritaan rasmi ah la geliyo arintaas runtii ummadda Soomaaliyeed walwal xoogan ayay gelisay in gabar wax soo baratay dhalinyaro ahayd dibadda ku dhalatay dalka u timid inay wax qabadkeedii ayadii qoyskeedaba lagu yaqaano wax qabad in sidaas fudud loogu dilo meel oo ilaa iyo haddana aan ogeyn war ka soo baxay dawladda runtii arintaasi walwal xoogan bay gelisay waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka oo aan ka tirsanay anagu inay arintaasi baaritaan rasmi ah la geliyo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanci karto sababta ay u dhimatana de ummadda loo soo bandhigo meeshaas oo la og yahay inay tahay de meeshii u dambeysay marka meel nabadgelyo lagu helayo ma jirto way hadii halkaas dadka lagu ugaarsanayo lagu dilayo marka mar kale eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeedba tacsi ayaan u soo gudbinaynaa gabadhaas walaasheen ee dhimatay ayadana waxaan leenahay Allahu naxariisto